السلام عليكم صاحب بيال meel waliba dad ka joogtaan ku soo dhawaada maanta dadka ciyaaraha la yaabka dunida iyo kuwa kale ugu muhiimsan ee dunida aad loo hadalhayo hadaba haddaanu iska ciyaaraynana maanta dhacdooyinka ciyaaraha waaweyn ee ugu yaabka badan baan soo qaadanaynaa waana dhacdo haddii aad tahay nin shaqo ay ka go'an tahay haddii aad taas samayso aad ku guuleysan karto waa dhacdo dhiirigelin ah waa dhacdo ciyaareed qof walba oo riya leh ayaa riidiisa ku rumayn karay dhacdada tanu waxaanu soo qaadan doonaa maanta master lama joojiye warwaake ninkaan la joojin karin master unstoppable war adu yaake ninkaan ka hadlayso wuxuu yahay noo lama joojinayso marna noo Soomaaliyeynaysayo marna kaba kala la gashanaysa war ninkaad ka hadlaysa waake Ronaldo shalay iyo maanta sheeko xiiso leh baan kaaga hayaayo waxa maanta wax kaaga sheegi doonaa nolosha dhabta ee uu soo maray Ronaldo iyo ninka maanta milyaneerka ah ee taajirka ah ee adduunku haysta meeshuu ka soo bilaabay yaani waa sheeko xiiso leh oo qaybta dhiirigelintu laga qaadan karayo shalay wuxuu ahaa shilin aanu haysan maanta sawa taajir waxaanu maanta kaaga tilmaami doonaa ariga Cristiano Ronaldo bal hadaba ku soo dhawaad waayahay asxaabta meel walba ka joogtaan waxaan idin leeyahay maalin wanaagsan asxaabay wallahi yaan hortaan u cimaamadiina garab ku haysan karin ya aan horta inaan iska soo galo maalin kasta kabtii karinta warka ka dhigo oo aan iraado kooxda Blay ninkaas ay qaadatay ninkaana la wareegay marada ka dhacday ninkaas cimaamad ma laha midka ka wariyahay waa xaalka warkiina waa naga inta maalin kasta imaado waa maradhac waxaan markasta ku celinayaa inaan anu wallahi in cimaamadiina garabkii saarneen waxaanu ka hadlay doonaa maanta Ronaldo shalay wuxuu ahaa faqri magaaladu xaaqay maanta se maxaa dhacay waa nin aan wax laga qaban karin oo adduunyadu waa harka labadiisu gelin adduunyadu waa harka labadiisa gelin bay Soomaalidu tiraahdayo marna adduunka waa lagu kuufinayaa oo lagu cimaamadayaa marna waa kaayo dib badan aad soo marayso wuxuu ahaa Ronaldo shilin man haysan jirino maanta se waa taajir hadda waa isagu mid kamid ah xidigaha ugu taajirsan sportiga taajirada sportiga marka la soo tirinayo Ronaldo waa ka raga ugu horeeya ee magacooda la soo qaadayo waa taajir weyn wuxuu ka soo jeedaa asagu ama uu waqtigu yara ka soo jeeday qoys aan wax haysan oo ku nool magaalada Midyara guriyarna way deganaayeen maanta la is arkayo ninku ma ahan maanta guriga weyn haysta maan u hayn guriyarna way degnaayeen qoyskuna wuxuu ahaa mid saboola isagu hadlay wuxuu yiri kuma soo raaxaysan yaraantu oo waxba maanu haysan aad ayaanu faqri u hayn xitaa ma haysan bombale aan ku ciyaaro ayuu yiri Cristiano Ronaldo hooyadii maanta aad arkaysaan dhacdooyinka waaweyn caalamka kala qayb galaysa ee badar noolaha iska ah ee social media isticmaalaysa ma aragtaa bar social media isticmaalaysa dad aragtid waa habar isu saarantaa waxeeda yaani ilaahay khayr ha siiya abrahayna waxa weeyaan anagay nagu soo daaleen anagay ma taqaan nagu soo tacbiye tiir beelen habrahan qolyaha gaaleed macnuu wuxoodu waxa weeyaan waa nasatay hadda hooyadii maalin mar wiilkeeda la soo caynayay Cristiano Ronaldo la dhahayo marada ka dhacday ayadoo ma social media ku soo jaabtay waxay tiri wiilkayga madaxaada kor u qaad wiilkayga baa tahay kuwan wax ku caaya waxa kaama qaadayaan anu ma yaabay oo habarti Ronaldo xataa social media ma laga cilaanay oo baraha bulshada qayb ka leedahay iyadoo soo hadlaysaba marka waa hooyadii wayaane waxay isku saaran oo social media xataa maanta soo gashay laakiin shalay maxay ahayd hooyadii wadooyinka ay xaaqi jirtay Facebook iyo Instagram maaruumaanu hayn bay wax soo qorowba teeda haysatiyo waxa weeyaan maanta wiilkeeda sida ka dhigay hooyadii wadooyinka ay xaaqi jirtay wixii laga soo helay wada xaaqidu ayaa Ronaldo lagu kori jiray xitaa marbay asagu iska soo xaaqi rabtay intaanu dhalanba waxay tiri anigu caloosha ku jira maxaan ka dhalayaa anu waxa loo mahayee Ronaldo dunidu inuu imaado qatar bay ku jirtay oo maxaa yeelay caloosha hooyadii tu ku jiray bay hooyadii go'aansatay in isagu iska soo tuurto dhakhtarkii baa ku yiri war hooy sug laga yaabay berinu ku anfici doore war sida hayeeli Ronaldo ilaa hadda hooyadii markuu ku guuleysanay dhacdooyinka ugu waaweyn ee jaysooyinka caanka Ballon d'Or marbu Ronaldo ooyay hooyo waxaad rabtay shariir adow isoo xaaqdo hooyo ma arkaysid maanta aniga ayaa wax kale ka dhigo hooyo shay waxaad rabtay adow isoo xaaqdo hooyo waa ka xumaayaqay arwiilkayga iyo marada marada waa ku baryaayay marada dhibiya dhibaataan ku jira wiilkayga iyo hooyo anigu wad isoo xaaqi rabtay miya wad arkaysaa maanta adduunku anigu baa waalaya hooyadii Ronaldo lagu leeyahay war wiilkayga iyo marada waa iga dhacday Ronaldo ilaa hadda hooyadii wuu haystaa wuxuuna leeyahay
hooyo shalay wadii xaaqi rabtay dhibtaabay cidda Ronaldo soo mareenoo hooyadii xaaqin bay qaadan jirtay wadooyinku xaaqi jirtay mar bayna isagu xitaa sooridi gaartay sidoo kale isagu xitaa wadooyinka ayuu wax ka xaaqi jirayoo si loo soo dhiciyo nolol maalmeedka laakiin ninkan hal riyo ayuu lahaa oo ah inuu noqdo ciyaartoy kubadda cagta ah taasna ma u sahlanayn sababtoo ah qalabkii ciyaaruhu xataa ama qalabku ku ciyaari lahaa xitaa maanu heli karinba wuxuu yiri mar noloshu aad ay ugu dhibadnayd waxaan kubaddu isaga ciyaari jiray kaba duq ah oo meel yaala kabahaas oo duq ay lahaayeen mid walaalkayba iska lahaa mid ilma adeeradiiba iska lahaa balse markaad yar tahay kama fikiraysid lacag buu leeyahay ها كباهو ولا كلا قادن جري وضع تيل هذا ولا كلا قاتها وريها صاحبه وريه قالت يدي كباه يا قي هل كانوا كسو عيار ياي واتهد لسدهو marka Ronaldo kaba iyuu ka jabsan ama ka dhamaatay oo duq ah ayuu guru ka qaadan jiray oo ku ciyaaro war ninkan maanta ka yaabteen master lama joojiyaha asagoo nin caana oo 5 jeer baldoor haysta ayuu istir wuxuu wali u shaqeynaya in wali kubadda cagta gacanta ku sii qabto maxaa yeelay asagu madda kama daalo inuu jimku iyo dagaalka iyo biruhuba sameeyo marka ninkan Ronaldo ah wuxuu yiri waqtigii xataa aanu yaraa kaba xataa lagu ciyaaro man hoysan jirin oo kabayga weyn baa iska gishay jiray oo ilma adeerada iyo walaalkaya Ronaldo wuxuu bilaabay wayisa ciyaareed balse la dhaqanku dadku wuu ku dhibanaan jiray master lama joojiyaha maanta arkaysaan ee gafuurka taagaya wax kaleynaya la dhaqankiisu dadku weligii waa dhibadnaan jiray marka la ciyaarayo kubadda hadii asxaabtiisa kubadda u baasi waayaan wuu ooyi jiray ima boosaysan anigu balooniga ayuu dhihi jiray xitaa markii laga badiyana wuu ooyi jiray haddana kadib waxay u bixiyeen naaneysta canuga iska ooya ama Ronaldo ooyaaye balse ogow aad ayuu u khatar ahaa waliba xirfad aanu caadahayna wuu lahaa marka Cristiano 14 jirkiisii maxaa dhacay Ronaldo Cristiano 14 jirkiisi wuxuu sameeyay macallimadii iskuulka ka faka weyday arninku dhib badnaa waa markan ku dhahay ninka kanon ku leeyahay waa master unstoppable master lama jooji markan ku leeyahay waa sida kano meel lagu jooji kara ma laha 14 jirkiisi macallimadii isaga iskuulkii macallimadiisa isqabtay war maxaa ka dhaxdhacay macallimadii iskuulku ayuu kursiga ku tuuray kadib markii uu yiri waxaan rabaa inaan noqdo xidig weyn mustaqbalka balse wuxuu ugu jawaabtay inuusan noqonin kadibna ay ku maadiisatay isaguna muxuu sameeyay mataqaana kursi haadaya ayuu ku furdeeyay yaani ku tuurayo meesha ugu geeyay isagoo yar xataa warowgan u qabay hadda arkaysa ninkan warowgan soo yar u qabay jirayo macallimadii xataa waa yaabtay wuxuu isku tiri war adu laacib ma noqonaysid war ma laacib intuu soo ku kacday uu ku gamay waa ninka dhimanay hadaan gool ka ninka karu markaas isku leedahay laacib matid Ronaldo ma ka yeelay marna ina tiro nin kala kubadda cagta ugu laacibsan ma dhihi kartid Bale ugu laacibsan kubadda cagta mana dhihi kartid Maradona xitaa ma dhihi kartid Messi ayaa ka laacibsan Ronaldo hal hadal buu haystaa go'aankiisu waa cad yahay wuxuu ku leeyahay oo maaniga maalinta kamaldaari aariya lagu shubay nin iga laacibsan ma ku arkin mulu kubadda cagtu aniga ugu laacibsan xitaa Messi ka fiicanahay war ninka dhan sida ilaa hadda dhahaya ayay isku tiri adu laacib ma noqonays asaguna kursi haadayu meesha ugu geeyay cidiisi iskoolku ninka way ku hay kari weyday way laga saaray iskoolka markii dambaba Ronaldo iskoolku waa laga saaray wuxuuna u jeestay inuu xooga saaro kubadda cagta taas oo ku hogaamisay ninka uu maantu yahay master unstoppable maxaa yeelay markuu iskool ka baxay diiradda wuxuu saaray kamaldaari garaacogu Ronaldo khamrigu ma cabo sababtoo ah abi ayaa ahaa khamriiste una geeriyooday sababta darteed xitaa taatoogu Ronaldo ma isticmaalo ciyaartooygu taatooga dhabarka ku soo qortaan iyo meelaha kale Ronaldo taatoogu u diiday wariyaha sabab taatoogu u diiday anu dadku ayaan siyaa uu leeyahay dhiigayga dadku dhiigayga ayaan mataqaana ugu cimaamada yaani dhiigayga ayaan dadku ku sadaqaystaa qofka taatooga marsadan dhiig ma bixi karo sidaas darteed Ronaldo taatoo ma isticmaalo maxaa yeelay wuxuu doonay dhiigis dadka ugu gargaaro arkan waa tagayba kadib Ronaldo iskuulka markuu ka tagay xooga saaray ciyaaraha Ronaldo waqtigiisa xigay kadib wuu ka gudbay dhibtaasu Lisbon ayuu ku soo baxay nasiibkiisuna waxa arkay Ferguson maalin ciyaariyay Manchester iyo Lisbon wuxuu ka yaabay sida wiilkan yar u galay ciyaartooyga Manchester darishada dambu ka fiiriyay wuxuu yiri wariyaha wiilkaas waa yanfacaya kadibna waxa la keenay Manchester wixii markaas ka dambeeyna Ronaldo taariikh ayuu sameeyay hadda isagu waa taajir ma ahan kii shalay wadada xaaqayay isaga iyo hooyadii gurigii yaraana ma degno guri weyn oo aad u weyn ayuu ku nool yihiin maanta 106 milyan ayuu sanadkii akoonkiisa ku soo dhacdo waa nin ku tashanay sanad kasta inuu soo dhacdo 106 milyan oo dollar waa 106 milyan oo dollar ayuu sanad kasta helaa
gaariyaasha hada mid buu qaataa gaariyaasha ugu quruxda badan ayuu gurigiisu dhigay mararka qaar markuu soo baxayo furiyaashu ku raadiyaa dheed waa wax tira badan hal furad la ordaysaayo hor gaariyaad dheed hor kaaga dhaha asagu waa kuwii wareeraaba warka dhid ku dhahay war waa 100 furu iska dawata 100 furu la wayaan waa gaariyaashu maanta hayso waxana gaariyaashiisa ku jira gaariga ugu qaalisan abid gaariyaasha adduunka waxana gaarigaas la yiraahdaa Bugatti kaas oo ah kan ugu qaalisan gawaarida ku fadhiya 1.7 milyan xitaa maankii shiidka shalay ahaa xitaa Ronaldo wuxuu leeyahay diyaarad khaas ah oo qaadi karta 80 qof oo ruux xitaa diyaarad buu leeyahay ninku baawur leed ka hadlaysay Ronaldo wuxuu sheegay inuu shaqo badan u soo maray wuxuu maanta yahay iyo hantiduu sameeyay hore Soomaalidu waxay u tiri niman shaqaysan shahwa ka xaraan ogow marka hadii aad tahay qof la hariyo hays dhiibin marna hays dhiibin waxay rabaan dadku ha kugu dhahaan ha u joojin dhibaato kasta oo ka hortimaada si adag u shaqay xitaa hadii dadku ku malayaan inaad waalan tahay maanta iyo barnaamijkeedii waa nagayta khalbada la socodsiinay nabadgelyo